بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المنتجبين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بمهاتك سبحانه وتعالى نقدر مسلمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم وحمهاتك له محوها dadka walaalaha kala duwan adduunka dacwadiisa naga daawanay ee naga nagala socda ayaa mahad iska leh. Soo dhawaada idinku dhan insha Allah taala. Maanta kalimadeenu waxay ku saabsan tahay doorashada ka dhacday Turkiga shalay Axadii markay ahayd doorashada ka dhacday. Waxaan doonayaa xadadka sababta aan uga hadlayo waxa weeye ahmiyad iyo qiimo gooni oo fara badan ayuu u leeyahay guud ahaan laga muslimiinta, gaar ahaan uu leeyahay adduunka oo dhan oo si kala duwan loo fiirinayay. waxaan la socday oo aad u mutaabacaynay ama aan la socday ololihii doorashadu intay socotay iyo dad yo fara badan oo kala duwan oo gaar ahaan inta badan dadka caalamka islaami iyo caalamka carabi ku nool oo Soomaaliduna ka mid tahay oo doorashada siyaabo kala duwan ula socda baraha kulanka iyo social media aad iyo aad baa looga tacliiqinay ama looga sheekeysanay ama looga hadalhayay. waxaan arkayaa dad yo fara badan oo in fara badan si gooni ah ugu ducaynaya oo u taageeraya Rajab Tayyip Erdogan in uu isku guuleysto doorashada, in uu soo baxo doorashada. qaar oranaya ha loo duceeyo, qaar oranaya masaajidda ha looga duceeyo, qaar oranaya xataa markii la tukanayo salaatul leylka iyo ha loo duceeyo ayaan u jeeday oo fara badan. laga yaabo inta ka soo horjeedaan arkayeen aad u badnayn, laakiin dad yow kale oo iyaguna si kala oranaya oo ama ka soo horjeeda iyagana waan arkay. marka taxliilkaas dad yow fara badan oo si kala duwan u taxliilinaya ama uga hadlaya xataa markaad fiiriso idaacadaha caalamka islaami ama caalamka carabi gaar ahaan iyo qaabka ay ololaha marka lagu jiray u taxliilinayeen ama ay uga hadlayeen, iyadana waxa laga yaabaa in ay ku soo baxdo siyaabo kala duwan. doorashada markay dhacday oo natiijadii iyadana ay soo baxday, waxaan u jeeday dad yow fara badan oo siyaabo kala duwan u tacliiqiyay ama siyaabo fara badan uga hadlay ayaan u jeeday. aniguna waxaan doonayaa inaan axdaastaas marka qaarkood dhacda ee u muuqata caalamiga ama inaan wax ka iraahdo ayaan doonayaa, oo waxaan adeegsadaa marar fara badan wax loo bixiyo alxadath bitarbiya. dadka dhacdada dhacday iyo inaan isugu xiro taariikhdooda iyo islaamkooda iyo wixii laga faa'iideysan karo inaan isku xirno iyo nolosha ayaan marar fara badan sameeyaa. xaqiiqatan dadkii la socday afgambigii Turkigu markuu dhicisoobay kalimaan ka diyaariyay arrinta iyada isla mararkiiba waxaana ku xidhayay shacabka Turkiga iyo dimuqraadiyadiisa iyo xorriyadiisa inuu difaacday iyo qiimihii uu sameeyay ayaan ku xirayay. waxaan iyada lafteeda xadad ka sameeyay oo ka hadlay dhowr jeer doorashada Mareykanka iyo qaabka u dhacayso iyo qofkii inuu tartiib borsadiisa u qaato oo uga tagayo ayaan iyadana waxaan ka sameeyay in fara badan dhacdooyin aan ku xiriyo nolosha iyo ummadaha wanaagsan iyo qaabka la rabo in loo noolaado. waxaan mararka qaarkood iyadana ahdaaf badan aan ku xiray oo ka sameeyay markii Prime Ministerkii ka horeeyay gabadhan hadda Ingiriiska ama haweeneydan Ingiriiska oo Prime Ministerka ninkii ka horeeyay David Cameron markuu tartiib uga baxay xafiiska iyo iyadana xadadkaana mar baan wax ka idhi. intaas oo dhan marka waxbaan uga dan leeyahay aan doonayo bal wacyiga bulshada ummadeena inaan si kala duwan aan u baraarujin karno ama kor u qaadi karno. tan marka iyadana waxaan doonayaa inaan si u tacliiqiyo arrimaha marka aan doonayo inaan u tilmaamo ee dhowrka qodob soo socdo waxa weeye qodobka koobaad. dadka aadka inta badan aan uga hadlay waxaan arkayay guusha waxa la siinayaa madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. inta ay ahayd guusha in la siiyo xisb al-hurriyati al-adala ama xisb ataniya xisbiga in la siiyo guusha iyo taxaalufkii ay sameeyeen iyo shacabka Turkiga. maxaa jira qof kaliya guul keeni kara ma jiro haddii xataa isagu uu مثلا uu yahay qofka madaxda qofka wax fara badan oo maaragtay ay ku xidhan yihiin, haddana waxaa la hubaa guusha waxaa soo hooyay oo keenay xisbiga. guusha waxaa soo hooyay dadkii ay taxaalufka iyo ay ku heshiiyeen. guusha waxaa soo hooyay shacabkii Turkiga danahooda ka dhex arkay xisbigan ka dhex arkay ayaa guusha soo hooyay. sadarteed guusha wuxuu qof leeyahay ma aha. innaga in fara badan muslimiinta markaan nahay taariikhdeena mas'ala kale ku xidhi doonaaye in fara badan waxaan ammaanaa hal qof ama fardi. maxaa jira marar fara badan camalka mu'assasiga la yiraahdo ama camalka jamaaciga ee inay urur ama koox ama ummadu ay wanaaga samayso. taariikhdeena in fara badan maynaan aad u tarkiisin oo aad loogama hadlin. mar walba waxaan ka hadalnaa hal qof iyo wanaagiisii. lidaalka waxaad arkaysaa markii tusaale ahaan laga sheekeeyo Salahuddin al-Ayyubi
صلاح الدين الأيوبي مدرسة soo saartay ee soo tarbiyeysay ee laga yaabo midhaheeda muxuu ahaa 7 sano kadib in la gurtay iyo sidoo ku soo baxay lagama sheekeeyay isagu inuu ahaa qof soo baxay wanaag iyo xumaanba wuxuu geystay isagiiba waxa laga dhigayaa qof aan caadi ahayn qofan caadi ahayn haddana marar far badan waxaan arkayay oo inoo muuqanaysa marar far badan inaad arkayso in Erdogan laga dhigo qof aan caadi ahayn arintuna sidaa ma xaqiiqahan way ka duwan tahay taas waxay dhaawacaysaa xisbiga taas waxay dhaawacaysaa ummadda waxaana muhiima nibaa wuxuu qoray reer galbeedku wanaagoodii fardiga waxay u bedeleen muassaso waana wax xaqiiq weeyaan muassasay u bedeleen waxay ka dhigeen nidaam bay ka dhigeen qaab bay ka dhigeen qaabka marka qiimo sameynaya qaabka ayaa qiimo sameynaya sidaa darteed waxaa muhiima guusha waxay u soo haytay xisbiga iyo dadkii ay bahwadaadka noqdeen guusha waxay u soo haytay shacabka Turkiga ay u soo haytay oo intay si xorriyad ku jirto si muxuu dimuqraadiyad ku jirto si muxuu ahay ku jirto hufnaan si ay ku jirto muxuu ahaa corruption la'aan intay doorashada u dhacday oo dunidii maana targareynaysa ama xataa dadkii daawanaya ay la yaabeen nazahadeeda iyo say nadiif u tahay haddana waliba cadad la yaab leh oo muxuu ahaa aad u xoog badan dadkii codeynay ee xaq u lahaa inay codeeyaan boqolkiiba taqriiban 87 dad saasi inay u soo baxeen ee codeeyeen arintaas marka guushaas waxa iska leh shacabka Turkiga oo rabna in la yiraahdo way mahadsan yihiin iyaga guusha soo hoyiyay iyaga guusha gaaray taas marka waa qodob aan doonayo inaan tilmaamo qodobka kale inta ku xiraya waxa weeye waxa muhiim inoo ah dad muslimiin nahay inaan qaab wanaagsan sameeyno qaabkaasoo haddii xataa qof khalad ay ku soo dhex dhuunto uu qaabku saxayo taa waxaan ka wadaa waxa muhiim ah system inuu samaysmo laakiin qofku wuuna wanaagsanaan kara wuuna xumaan kara sidaa darteed ba taariikhdeena in fara badan oo kamid ah markii qof wanaagsan ummadda uu xukumana haddii qofka damiirkiisa iyo dandimadiisa ayaa intay celiso ayaa uu wanaagsanaan jiray haddii inta badan ay dad xun ahaayeen qofka wax xukumana bulshada bini aadamkana inta badan dadka xunba dadka wax xukuma hadaan la helin qaab iyo nidaam celiyo way xumaanayaan yani waxa dhacaysa inuu in fara badan uu maartay system ku khaldamo lidalika taariikhdeena oo fiirso inagoo boqolaal sano ahayn duwalka adduunka ugu xoog badan oo muslimiinana wax xukumi jirnay marka laga sheekeynayo nidaam lagu daydo nidaam qof lagu daydo waxaan weynay wax ka badan أفرت خلفاء الراشدين مركاسا وحن كشنايني عمر بن عبد العزيز عد كلام ويني مركا عد كلام ونموذج نقضة وتصالن نقضة أيام ويني مركا في أفراد با وناكسن لكن سيستم متجرو سيستم مركا مركو نجرين قفكو هدو وناكسن هذا هدو خير هدو وناكسن ويان أمدا إنه ولين إنه ودعي إنه وحري وحربو سمينيا سأنفهمنا وحن كهاللينو دون ذا الرجال بعد كمانتا wanaag afraad ay sameysay waxay ka dhigaan system ay ka dhigaan hadda wadanka Mareykanka waxa xukuma Donald Trump systemku ku soo baxay qaabkii buu ku yimi doorashadii buu ku soo baxay cid waliba waxay ogtahay oo bulshada ka tirsan ninkan hadduu ugu bato 8 sano joogaya hadduu ugu bato haddii kale 4 sano kadib uu ka tagi meesha marka haddii xataa isagii oo wadanka Mareykanka iyo adduunkiiba uu ka yaaban yahay soo u dhaqmayo oo maanta madax yahay cid waliba waxay ogtahay haddii ugu bato 8 sano kadib inuu iska lugeynayo oo uu caruurtiisa iyo businesskiisa uu ku noqonayo marka qaabka iyo nidaamka iyo systemka ayaa qiimo leh innagana waxaan rabnaa hadduu marka wax inoo aan rabnaa in wax inoo hagaago inaan system dhisno system kaasoo marka ay dadku isaga ku yimaadaan qofkii markuu wax xukumayo systemku wax ku xukumi marka uu khaldo systemkiiba isa saxaya oo isagii barito doorashadu inta laga adkaado ayuu iska tagayaa marka system wanaagsan ayaa muhiim ah inaan dhisno ta aan doonayna marka inaynu u soconno la doonayo in lagu farxo la doonayana waa system wanaagsan in la helo laakiin qof wanaagsan wax weyn kaliya ma keenin macna ma sameeyo taasuna marka waa qodob labaad weey qodobka marka muhiimka aan doonayna waxa weeye systemku inuu wanaagsanaado oo ay timaado barito waxaan isweydiinayay dadka maanta asan u oranaya haddii intay doorashadii dhacdo natiijadu sida maanta ku soo baxday si aanan ay noqon lahayd oo Erdogan cid aan ahayn ay soo bixi lahayd
waxaan oran lahayn oo shacabka waa la gatay cid kale muxuu ahaa cid kale ayaa ya soo faragelisay sidaana yeeshay noocana yeeshay laakiin waxaan rabnaa inaan u gudubno systemka markii hadhow doorashada inta la galo cidi ay guulaysato ilaa waxay ku guulaysatay khitaabkeeda say u hadlaysay waxay ku guulaysatay taariikhdeeda iyo waxqabadkeeda waxay ku guulaysatay wixii ay soo bandhigtay waxay insaan la yiraahdo markay guul dareysato hataana in la yiraahdo maxay ku guul dareysatay mayno nidaamsanayn organize mayna ahayn hadalkooda khitaabkooda ma fiicnayn credit fiican iyo waxqabad fiican ma lahayn saasay ku guul dareysatay taa waxaan marka aan uga socdaa nuqdada saddexaad ee doonayo oo ah inuu shacabkan inuu xisbigan muxuu ahaa iyo Erdogan ay guuleystaan waxaan rabaa inay darsi u noqoto cid walba oo kale oo waliba wadata shaatiyada badana inkastoo aan jeclayn hadda loo xidhay oo leeyahay islaam siyaasi aniga ma jecli magacaas laakiin dadka oranaya waxaan rabnaa mujtamacan muslimka inaan xukunno annaga oo sharciyadanadu ay ka qaadanayna islaamka ama ururada islaamiga ama ururada diiniga inay tajrubo ay u noqoto muxuu ahaa tajrubada Erdogan iyo xisbigiisa oo ah shacabku ina salaad tukato iyo inaadan tukanin ma kala jecla inaad soonto inaadan soomin ma kala jecla inaad masaajidka ku ooyid inaadan ku ooyin ma kala jecla shacabku waxay ka doonayaan xorriyadii maxaad ka qabatay xorriyadii ma tawfiirisay xorriyadii dadka ma u sintay waa qodob xorriyadu marka waa asaasi xorriyaduna waxaan rabaa inaysan noqonin ku gaar kursi ee ay noqoto principle ay rumaysan yihiin mararka qaarkood qaabka fiqhiga ni horena loo qoray oo diinta laga dhigayo qofku markuu yara tabar daran yahayna inuu si u hadlo markuu yara tabar darhadana inuu si u hadlo ma taas waa qaabka siyaasiga ah daalimka ah weeye laakiin diintu waa isku mid weey sidaa darteed waxaan rabnaa xorriyadu waa asaasi maxaad xorriyada ka qabatay waa koob laba cadaaladda maxaad ka samaysay shacabkii cadaaladda maxaad ka samaysay waa qodob labaad weeye qodobka saddexaad shaqo ma abuurtay shacabka turku wuxuu fiirinayaa xisbigan ka hor intuuna wadanka iman xisbiganu shaqo la'aantu meeshay maraysay maanta shaqadu meeshay marayso ayaa la fiirinayaa tacliintu meeshay maraysay maanta meeshay marayso ayaa la fiirinayaa jidadka dhisan iyo wadanka sida u dhismayo meeshuu ahaa iyo maanta meeshuu marayo ayaa la fiirinayaa asbitaal lama abuurtay marka waa xorriyadii waa dhaqaalihii waa shaqadii waa cadaaladii waa dhismihii iyo jidadkii dadkii nololba u abuurtay arrintaasaa muhiima waxaa kaleeto dadkii ma ku abuurtay barayd wax la yidhaha farxad iyo kalsooni ay wadankooda ku qabaan farxad iyo kalsooni bulshadooda ay ku qabaan farxad iyo kalsooni ah qofku wuxuu ku meel marayaa dadnimadiisa iyo aqoontiisa ma u abuurtay xaggaasaa la doonayaa inay islaamiyintu fiiriyaan ama dadka doonaya ururada diiniga ee u hanqaltaagaya inay ummad xukumaan yaysan mar walba ku celcelinin annagu nadiif baan nahay lama oga nadaafadiina inaad wax xukuntaan baa lagu kala garan waxaan bari dhexdaara ka qayb galay sanadka hadda inaga tagay dhammaadkiisii shir lagu qabanayay waddanka Mareykanka goboladiisa mid ka mid ah marka ururada Mareykanka ka jira muslimiinta urur ka mid ah soo qabanayay marka waxaan ka qayb galoon dhageysto dadkii dhageystay ku jiray lecture ama muxaadaro ay niman ka hadlayeen lecture-ku marka wuxuu ahaa ururada islaamiyiinta ee caalamul islaamiga caalamul carabi ma guuleysteen isoo way fashaleen lecture-ku sidaas uu ahaa waxaa marka laba nin baa marka ahay dadkii hadlayay nin baa marka aad ilay aan u jeclay suu hadlay wuxuu yiri ururada islaamiga ah markay ahaayeen fi mawqif mucaarada markay ahaayeen guul badan bay soo hooyeen buuri maxaa jira mucaaradadu iyadoo wax ma xukumin mar walba marka dhaliisha dawladda ay sheegi marka dhaliisha dawladaha sheegayeen markaas mawqif quwa ayay taagnaayeen laakiin markay wax xukumeen ay xukunka yimaadeen way fashaleen buuri way fashaleen mawqif markay yimaadeen mawqif al-mas'uuliyah way guul daraysteen su'aal baa lagu soo celiyay waxa lagu yiri jaanis ba lama siininba waa la fashaliyay wuxuu yiri haddii aysan
fashalka lagu soo wada iska celin karin oo aysan fahmi karin khidada loo soo socdo inay xukunka yimaadaan ma ahayn waana runtiis haddaysan fahmi karin khidada loo dhigayo haddaysan fahmi karin adduunkan jahannamigeena isu naxariisanaynin haddaysan fahmi karin lucbadu siday u ciyaarayso inay meesha iyo surdada yimaadaanba ma ahayn taan marka u socdaa waxa weeye inay ogaadaan ururada u qaltaagaya inay wax xukumaan bulshadu waxay doonaysaa inaad wax u qabato arrintaas marka waa laga maarmaan wey ma jirto wax la yidhaahdo addowla alislaamiya iyo addowla ghayra islaamiya dowlad islaami ah iyo dowlad islaami ahayn ma jirto waxaa jirta addowla alfaashila iyo addowl muxuu ahaa ghayra faashila dowlad muxuu ahaa fashilan oo guuldaraysatay oo wixii la rabay qaban weyday iyo dowlad guulaysatay dowladda guulaysataana waxay u tahay micyaar iyo aasaas qaabka wax loo xukumayo iyo sida aad rabto inaad bulshada wax ugu qabato arrintaas marka waxa weeye inay noqoto arrin muhiim oo lagaba maarmaan ah weeyaan sida waxaan idhi markaan ka hadlayay ictiraafkii dhicisoobay qayb badan oo ka mid ah inay bulshadu xisbigan isgarab taagaan waxqabadka ayay ku qiimeeyeen saa darteed waxaa muhiim ah ururada islaamiyiinta u hanqaltaagaya inay wax xukumaan inay prioritigooda koobaad ka dhigtaan xorriyad in la tawfiiriyo qof walboo bulshadaas ka tirsan diintu dooni ha haysto madhabku dooni ha ka soo jeedo hadday taas samayn waayaan ma xukumi karaan caalamka maanta jira dowlad joogta ma xukumi karaan hadday cadaaladda samayn waayaan oy cadaaladda u noqon weydo standard wax lagu sameeyo qofku midabku dooni ha lahaado diintuu dooni ha haysto mar hadduu shacabkaa ka tirsan yahay ay xukumayaan cadaaladda hadday u tawfiirin waayaan waa qodob labaad wey qodobka saddexaad haddii ay bulshada u abuuri waayaan tacliim waxbarasho dhaqaale shaqo nolol cisbitaallo jidad hadday bulshada u abuuri waayaan bulshada waxay dooni biyo nadiif ay cabto salaadaa tukata aday ku taalla waxay doonaysaa inay shaqo hesho salaadaa tukata aday ku taalla waxay doonaysaa inaad tacliin u abuurto salaadu aday ku taalla waxay doonaysaa inaad shaqo abuurto salaadu aday ku taalla salaadu marka wax adiga ilaahay ka dhaxeeyo subxaana wa tacaala laakiin waxaan rabnaa inaydaan moodin haddaad tukanaysaan inay bulshadu salaada idinku jeclaanayso bulshadu waxay idinku jeclaan maxaad u qabateen maxaad u tarteen ma idinku qaban waxaana la rabaa ka tukadiya kaa tukan in loo aad u sinaataan ka muslimka ah waddankaa jooga ka muslimka inaad u sinaataan ka xisbigiina ku jira kan ku jira inaad u sinaataan waddanka loo sinaado arrintaasna marka waa arrin kale oo asaasi ah waana arrinta keenaysa qayb ka mida guusha muxuu ahaa ay xaqiijiyaan weeyaan ee loo socdo arrinta kale doonayaan meeshan inaan ku daro waxa weeye ee lagaba maarmaanka waxaan ka hadlaynay systemkaas waxaa muhiim inaan u soconno systemkaa dhismay ee marka weliba haddana isbedelaya oo haddii doorashada xataa inta la galo xisbiga laga adkaado inaan la odhan mu'aamaro kale iyo jinni kale iyo waxbaa dhacay in xisbigu isqiimeeyo oo war maxaa lainooga adkaaday uu yidhaahdo war maxaan meesheen ka boodnay maxaa inaga khaldamay inuu yidhaahdo kadibna sida iyaga markay adkaadaan natiijada loo aqbalayo tay natiijada u aqbalaan inay sugaan oo dib dambe is sharaxaan marka arrinta tadaawul sulta inay kaga dhabeeyaan ayaa iyadana wax laga maarmaan oo la doonayo weliba ay u jeexaan waxaa kaleeto systemka aan doonaya weli inaan ka sii hadalno haddii aan rabno inaan aan tajribada noocan oo kale inay guulaysato waxaa muhiima tajribada wixii keenay oo dimuqraadiyadda ah tajribada wixii keenay oo xorriyadda ah inay islaamiyiintu daacad ka noqdaan arrintaasaa lagaba maarmaana maxaa jira ma iman lahayn ragganu meeshan hadduuna systemkii iyo nidaamkii ay kusoo galeen uusa imanin meesha taasi marka waxay u iman oo kaleeto inaan masaajida loo adeegsanin xarbi dacaayo oo siyaasi ah ay masaajidu noqdaan meel dadkaasi u siman yihiin kuwan xisbigaaga ka soo horjeeda iyo kuwan xisbigaaga taageersan labaduba masaajidkay kusoo wada tukanayaan masaajidkay wada imanayaan marka masaajidka inuu noqdo liljamiic muslimiinta oo dhan baa iskale laakiin xisbi goonihi ma laha saa darteed xamlada dacaa'iga inay ka baxsanaato masaajidu waa lagaba maarmaan inay ka baxsanaato waa lagaba maarmaan haddii kale masaajidka hadhow intuu qiimo beelo ayaa sida wadamada qaarkood dhacday ee xataa masaajidkii la isugu laayay ee la isugu tooriyeeyey ayaa dhacaysa marka waxaan rabnaa inay taasna
aada looga feejignaado oo laga fogaado ayaa lagama maarmaan ah. si kale haddii loo dhigo waxaan rabnaa madaahibtaa kala duwan iyo dawaa'iftaa kala duwan koox waliba inay xor u tahay macbadkeeda iyo masaajidkeeda iyo meeshay joogto systemkan ay u siman yihiin ayaa marka inaan sax u soconno ayaan rabnaa oo arrinta kale lagama maarmaanka ay tahay. qodobka kale kaa la socda waxa weeye waxaan rabnaa haddaan doonayno inuu wax noo hagaago in la kala saaro sultada tanfiidiya wax maamulaysa nidaamka qadaha ee muxuu ahaa maxkamadaha iyo parliamentarianka ama cidda sharciga dejinaysa in la kala saaro. haddaan sidaa la yeelin waxaa soo baxaysa hal nidaam ama hal koox oo iyadu muxuu ahaa ama qofkii madaxweynaha ahaa isaga ayaa boqorkii oo ra'iiskii ah, isaga ayaa qaadigii ah, isaga ayaa sharci dejiyihii ah. marka meesha dawladda ka dhalan mayso, nidaam wanaagsanna kama imanayo. marka nidaamkii aan sheegaynay ee wax lagu ahayd nidaamka wanaagsan aan rabno inaan nidaam wanaagsan dhisno ayaa wuxuu yahay inaan abuurno executive lasoo doorto oo direct oo lasoo doorto, sharci dejiyaal lasoo doorto, iyo labadaas qolo saddexaad oo iyadana qayb ka mid ah lasoo doorto, qaybna haddii hal la magacaabo oo ay judiciary ama qadiya oo kala madax bannaan oo qolada kale ay muraaqabaynayso, qolada kaleeto ay samaynayso. qolada ugu tabardarana inay tahay qolada tanfiidiga ah, labada qolo ugu xogdan ay noqdaan qolada sharci dejinta iyo qolada muxuu ah maxkamadaha ay noqdaan. nidaamka haddaynaan helin oo saa aan loo guurin oo aan isku daynin inuu nidaamkaasi inoo dhismo oo aan tartiib oo maalin walba aynu isaga usii dhowaano waxaan ogaanaa wax badan oo xaqiiqa ahaan dhismaya ama inoo hagaagaya inuusan jirin. taas marka waa qodob kale oo asaasi ah oo ahaa nidaamkii aan doonaynay. nidaam baa meeshan yaa keenay xisbigan, nidaam baa keenay Erdoganka aad u sacbinaysaan. nidaamkii marka ma u baahan yahay isaga laftiisa in la tafciiliyo, in la dhiso ma u baahan yahay mise waa lagu meel gaari? waa su-aal iyada lafteeda jawaab inaga rabta oo jawaab ka doonaysa way. waxaan kusoo khatimayaa marka oo ay tahay guushaa soo hoyatay ma soo hoyanin madaxweynaha maanta jira, qayb asaas uu ka yahay, laakiin xisbigiisaa soo hoyay. waxaa soo hoyay muxuu ahaa bahwadaagtii uu samaystay ama ay sameeyeen baa soo hoyay. waxaa soo hoyay shacabka Turkiga ee dantoodii iyo maslaxadooda ka dhex arkay ayaa soo hoyay. haddii marka la doonayo in loo socdo nidaam, in loo socdo sidaas, waxaan rabnaa inaynu wax nidaam dhisno ee aynaan qof wanaagsan keliya ku dadaalin. may qofka wanaagsan waxaa ka muhiimsan nidaamka wanaagsan. marka nidaam wanaagsan la helo haddii xataa uu kusoo dhex dhuunto ama uu kusoo baxo qof aan wanaagsanayno nidaamka isa saxaya. saa darteed bay muslimiintu waxa aan u baahanna waa inaan dhisno nidaam, waa inaan dhisno system wanaagsan, qaab wanaagsan, nidaam wanaagsan, nidaamkaasoo inahaga, nidaamkaasoo aan ku soconno, nidaamkaasoo aan u sibannahay, nidaamkaasoo ina wada ilaalinaya, nidaamkaasoo ina wada ixtiraamaya, nidaamkaasoo ina wada qadarinaya, nidaamkaasoo muxuu ahaa isagu uu yahay midka aan ku kala baxayno, isagu uu yahay midka aan ku kala baxayno. taas marka waxay ila tahay waxyaabaha aan rabno inaynu xoojino inay tahay biidni illaahi tacaala. waa kelimo aan doonaya keli inaan si degdeg oo cujaalo ah aan idinla wadaago ama degdeg oo furan. waxaanan hubaa haddii aynan sidaa isku dayin inuusan wax badan aynan najixin karin ayaan hubaa. saa darteed saan u najixino inaynu aan tajribadaas isku dayno inaan dabagalno, iyaga laftoodana la toostoosiyo, iyaguna ayna noqon meesha inay iska joogaan ay dhab ka noqoto suldatu tadaawul oo dadka kalena ay jaanis uu ku soo bixi karo ay soo baxdo ayaa muhiim. ugu dambeynta waa inay noqoto shacabka ayaa iska laho qofkay doonaan bay meesha keensan, qofkay doonaanna uu iska tegi. nidaamkaas hadduuna inoo abuurmin meel ma gaarayno. nidaamkaas hore inooguma abuurnayn, laakiin tajribadaasu waa mid u baahan in lagu socdo, laga faa'iideysto, dib loo fiiriyo. waana tajribada maanta jirta insaanku sameeyey tajribaadka ugu qiimaha badan weeye. waa tajribada dimuqraadiyadda ee xorriyadda ah ee shacabku uu codka leeyahay, ee shacabka inta loo tartamo shacabku marka uu keenayo qofka ay rabaan, qofkaasi ummadda xukumi, markay rabaanna uu qofkaasi iska tegayo.
hadalkayga intaas rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waad mahadsantihiin وشكر الله لكم جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته